calaykum kusoo dhawaada casharkii koowaad ee koorsee taxane bilow ah oo ku saabsan barashada cilmiga forex. Muuqaalkan koowaad oo hordhac u ah muuqaale taxane ah waxaan iskula eegi doonaa 4 qodob. Qodobka koowaad ayaa wuxuu yahay inaynu ka jawaabno su-aasha ah forex ee maxay tahay, inaynu sheegno forex asal ahaan waxa ay tahay. Qodobka labaad, sidee forex ku timi, jiritaankeeda iyo dhalashadeedu waxa ay ka dambeeyaan. Iyo qodobka saddexaad oo ah sidee qof kasta fursadan ugu suura gashay, maadaama aynu ognahay cid kasta maanta ay qayb geli karayso. Iyo su-aasha u dambeyso ah yaa forex ku shaqaysan karaya, waa ayo, waa kuma ama waa cidma cidda ku shaqaysan karaysa. Haddaynu ku bilowno su-aashii koowaad ee ahayd waa maxay forex. Forex horta kelmaddan lafteedu waxa ay ka timi 2 kelmadood. Ta koowaad waa foreign, ta labaadna waa exchange. Foreign waxaa lasoo qaatay 4 kelmadood ugu horeeya ee FOR. Exchange-na waxaa laga soo qaatay 2 xaraf ugu horeeya, sidaana waxay ku noqotay forex. Foreign waa qalaad, exchange-na isku beddel. Macnaheedu 2 waxyaabood qalaad ama kala duwan ayaa la isku beddelaya. Qeexitaankeeda haddaynu eegnana waa suuqa maaliyadeed ee adduunka ugu weyn. Forex-ka waxa maalin kasta amaba 24 saacadood lagu kala iibsadaa ama la isku beddelaa in ka badan 7 trilyan oo dollar. Taas waxay ka dhigaysaa suuqa maaliyadeed ama dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka maanta ka jira. Si aynu fahamka usoo dhaweyno forex qaabka ay u shaqeyso, bal aan isla eegno tusaalahan. Kasoo qaad qof baa wuxuu kasoo degay airport-kii Ingiriiska ee London ku yaalay. Qofkaasi waxa uu sitaa lacag dollar ah. Lacagta dollarku qofku sito waxba kagama iibsan karaayo magaalada dhexdeeda, waayo waddanka waxaa laga isticmaalaa lacagta pound-ka ama lacagta Ingiriiska. Kasoo qaad qofku $100 buu haystaa. $100 si uu magaalada uga adeegto wuxuu u baahan yahay inuu u beddesho lacagtii Ingiriiska. Dabeedna airport-ka dhexdiisa ayuu sharifle ka beddeshay. Dabeedna waxaa lagu yidhi lacagta $100 waxa ay kuu jaraysaa 120 pound oo lacagta waddankaasi. Markii muddo kasoo wareegtay uu 120 pound haysto ayaa qofkii waxa uu damcay inuu lacagtiisii uu dib u soo ceshado oo uu dib airport-ka uga dhoofo. Qofku wuxuu haystaa lacag gaadhaysa 120 lacagta Ingiriiska ah. Lacagtaydii buu yidhi dollarka ii soo celiya. Marka uu yimi kadib ayaa waxa lagu yidhi intii aad maqnayd ayaa ay qiimihii sharafku isbedelay, sidaa awgeed 120 pound waxa uu maanta u dhigmayaa $120, maadaama lacagta qiimaheedu ay isbedelaysay. Qofku waxa iminka gacantiisa ku jira $120. Awal markii uu soo galay airport-kana wuxuu haystay $100. Halkaa waxa uu ka sameeyey faa'iido gaadhaysa $20. Beddelka labada lacagood dhexdooda ayaa aanay $20 ka timi. Forex waa qaab nidaam noocaas oo kale u shaqeeya. Haddaba forex shaqada oo dhan waxay ka dhex dhacaysaa internet-ka, oo ma tegaysid waddamo sida Ingiriiska iyo Maraykan uma kala dhoofaysid, ee lacagta aad sharifaysid waxa aad sharifaysaa adigoo adeegsanaya internet-ka adduunka halkaa doontid adigoo ka jooga. Oo lacagtii waxaad isku beddelaysaa Ingiriiska iyo lacagtii Maraykanka amaba lacagtii yuurada, adiga oo jooga halkaad doonaysid keliyana adeegsanaya shabakadda internet-ka oo keliya u baahan internet. Shaqadan oo dhan waxay ka dhex dhacaysaa internet-ka dhexdiisa. Waa sharif aad 2 lacagood isku beddelaysid, laakiin waddamo aanad u dhoofaynin, adigoo aaladda internet-ka isticmaalaya aad waxaas qabanaysid. Isku beddelka dhexdoodana lacag aad ka samaynaysid. Su-aasha ku sii xigta iyadana sidee qof kasta fursadani ugu suura gashay. Taariikh ahaan taariikh dheer bay
lacagtu bini'aadamka ku leedahay oo ay soo jirtay. Markii ugu horreysay ay dhacdo in lacag qiimaheedu aanu fadhiyin oo gelinka horena qiimo tegaysa, gelinka dambena qiimo tegaysa, waxa ugu horreysay 1970-yadii. Macnaheedu lacagtu qiimaha ay leedahay waxay ku xidhan tahay suuqa waxay kaaga jarayso ama baahida loo qabo. Waddamaduna lacagahoodu way kala awood badan yihiin, waanay kala qaalisan yihiin. Isbeddel baana ku dhaca oo lacagtu qiimo fadhiya oo aan isrogrogin ma laha. Taas ayaa ka dhigtay suuragal in lacago badan la isku beddelo iyada oo waddamo badani adduunka ay ka jiraan. Berigii hore si suuragal uma ahayn shacabka in ay ka shaqaystaan oo isbeddelkan ay sameeyaan. Beriyaha hore waxaa samayn jiray isbedelada dowladaha oo dowladuhu markay lacag u baahan yihiin fara badan ayaa ay lacag kale wax kaga beddelin jireen. Tusaale ahaan, waddan ayaa wuxuu haystaa lacag fara badan oo ah lacagta Mareykanka. Markuu u baahan yahay waddan kale inuu kaga soo iibsado lacag sida tusaale ahaan China oo kale, wuxuu u baahan yahay lacagtii badnayd ee dollarka ahayd inuu u beddelo China si uu China dhexdiisa wax uga soo beddesho. Sidoo kale isku beddelka waxaa samayn jiray bangiyada waaweyn iyo dadka hantiilayaasha ah iyaga oo suuqa ka shaqaysan jiray. Laakiin dadka shacabka waxa u suura geliyay markii dambe wax brokerage loo yaqaano oo aynu halka dambe casharada kaga hadli doono brokeradu maxa ay yihiin iyo shaqada ay qabtaan. Taasi waxa ay suuragal ka dhigtay in qof kasta maanta isagoo adeegsanaya internet uu ku beddel lacageed samayn karayo oo ku shaqaysan karayo loona yaqaano forex trading. Su-aasha ku xigta ee aynu ka jawaabayno waxa weeye yaa forex ka shaqaysan karaya. Maanta iyadoo fursadani ay jirto dadkoo dhan kama shaqaystaan. Waayo sababtoo ah qofku horta wuxuu u baahan yahay internet oo waxaynu xagga hore ku soo sheegnay shaqada oo dhanba waxay ka dhex dhacaysa internetka dhexdiisa. Qodobka ku xiga oo ah qodobada ugu muhiimsan ahna kan ugu muhiimsan ayaa ah qofku aqoon inuu leeyahay. Forex waa xirfad u baahan aqoon iyo barasho iyo tababarasho kahor inta aan lagu shaqaysan. Sidoo kale aqoon la'aanta ayaa aan suuragal ka dhigaynin qofku inuu suuqa ku shaqaysto. Qodobka ku xiga waxa weeyaan qalab. Qofku dabcan wuxuu u baahan yahay mobile, computer in uu ku shaqaysto xirfadan hadda uu doonayo. Qodobka ku xiga ee u dambeeya waxa weeyaan waa lacag. Sida caadiga ganacsi kasta waxa uu u baahan yahay lacag lagu bilaabo. Forex-na lacagaha lagu bilaabayo wuxuun bay la mid tahay ganacsiyada kale ee kale mid kala mid ah. Marka lacagta qiimaheeda intee leegtay waxaasi waa mawduuc kale. Laakiin waxa waajib ah ama qasab ah qofku si uu ugu shaqaysto inuu marka hore lacag u la yimaado suuqii si uu ugu shaqaysto. Waxaasoo dhan ugu muhiimsan qofku inuu leeyahay aqoon. Casharkii ama muuqaalkii koowaad halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalka gaaban. Casharada soo socda ayaa aynu kaga hadli doonaa qofku wuxuu u baahan yahay ama aqoontu u baahan yahay maxay tahay si uu suuqa uga shaqaysto. Waxay noqon doontaa ama taxliilin ha noqoto ama taxliilinta qaybaheedii kala duwan ha noqoto ama ha noqoto risk management ama maamulidda khasaaraha ama halista ha noqoto hab fikirka looga baahan yahay qofka suuqa ka shaqaysanaya ee loo yaqaano traderka iyo su'aalo kale oo badan iyo sidoo kale inaynu jajabino una xabad iskula eegno xirfad kasta u baahan yahay qof suuqa ka shaqaysanaya. Muuqaalka mid ku xigna ku kulmayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.